kiiska dacwadda badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya ayaa loo madalsan yahay in 15 bishan maxkamadda Hague ay u fariisato. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Garowe caasimadda Puntland ayaa weydiinay aragtidooda ku aadan damaca Kenya ee baddeena Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya ee ka qabto in kiiskaasi ay guul ka gaarto. Xasan Xaashi Aadan waxaan u hambalyeeyaa TV-ga maanta waraysiga iga qaadaya TV-ga qaran iyo wareeyaasha waxaa halkan la rabaa inaan ka hadlo barnaamijka badda ee Soomaaliya. badda Soomaaliya leh rajo fiicanna waanu ka qabnaa. rajadaas haday maxkamadda Hague ay wax fiican ka soo saari weydo awood baan u adeegsanaynaa biidnillaahi kariim. waayo ma ogolaanayna dhulka taaka aan leenahay in bil aadan qaato iska daa Kenyaatiye dawladaha waaweyn baanan u ogolayn. ma garad waxaanu leenahay walaalaha iyaga reer Kenya dhulka iyaga inaanu leenahay waa ogtihiin. hunguriga iyo damaaciga iyo dawlad xumada inta aragtaan naga daaya. haddaan naga dayn weydaan baka Nairobi baan soconaynaa. horta waxaanu leenahay aanu filanaynaa guul gardaradana ilaahay ma jecla. Kenya marka hore waa dal aanu darisnahay. waa dal aanu isku qaaradnahay. waa dal aanu markii hore abaal u haynay oo dadkayagii qaxootiga ahaa ay galeen. laakiin abaalkeedii waxay nooga dhigto noogu dartay inay annaga nagu soo durugto. Kenyana ilaahayna wuu ogyahay iyaduna way ogtahay caalamkuna waa ogyahay wax hore aanu u tirsanaynay wixii hore laakiin maanta waxba nagaga sii daran dhulkii waxay ku darsatay badda wax madmadow ku jirana maaha baddayada inaanu annagu leenahay. marka horta marka hore waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan madaxdeena inoo maqan aynu taageero buuxda siino una ducayno kuwii ilaahay solansiiyo dacwadda wacan ilaahay ka dhigo. Kenyana waxaanu leenahay baanu isku haysanaaye waxay leedahay iskuma haysano. bismillaahir rahmaanir rahiim bahda iyo hawlwadeennada TV-ga qaranka aad baan ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa. marka labaad barnaamijkan ku saabsan kiiska dacwadda badda oo wadanka Holland ka furmaya oo wax aad loogu baahnaa in dadka maaragtay ra'yigooda laga aruuriyo oo la ogaado bal dadku say uga falcelinayaan. anigu khaasatan Cabdisalaan ahaan waxaan u arkaa dacwad caalami ah oo dastuuri ah waxaana ummadeena Soomaaliyeed dhammaantood ku waajiba haday culimo tahay haday shacab tahay haday siyaasiyiin tahay inaan u midowno. waxa lagu doodayo ama waxa lagu gorgortamayo maahan hanti qof gaara uu leeyahay maahan reer gaara ama gobol gaara hanti uu leeyahay maahan waa hanti dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada wadaagaan. markii dacwadaas lagu jiro ama hawshaas lagu doodayana maahan in maaragtay si kale wax loo eego ama siyaasad ahaan wax loogu eego ama qabiil ahaan wax looga eego. waxa waajib nagu wada ah in aanu cod mid ah leenahay haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay. madaxdeena in matalaysa oo dacwadda inoo jirtana marka ugu horeysa oo u mahadcelinaynaa. marka labaadna waan u ducaynaynaa in ilaahay maaragtay waxa niyadooda ku jira oo ah in hawshaas aan ku guuleysano oo xaqayaga ay noo soo dhiciyaan in ilaahay u sahlo ayaan ugu ducaynaynaa. aragtiyada waxaan ka qabaa anigu inaan Kenya waxba ugu haysanin niman mucaarado oo dadka kan maartay haddaba dadka xumeynaya inay mas'uul ka yihiin hawshan oo ay badeeda ka yihiin kuwana yiraahdaan ku hadla badana iskala xuduud meel bay martaa waa la yaqaana xadadka ninkii sameeyay Ingiriis buu ahaa haddii xaniya ku hadlayaan xaniya wuu haya haddii xaq doonayaan way xaq bahaya. Soomaaliya anigu dadka dalkiisa kuma duulo haddii se laga doono ceebta Nairobi baan markaa ku duulay anigu waxaan kii qoriga qaadanayay yaa ilaa Gaarisa Soomaaliya ale ilaa Bambaasa Soomaaliya ale intaasaan tegay awal xaq dhowray haddaan qarqarada iga digo. Xasan Jeelaan Cali Xasan Haykal telefishinka qaranka Garowe.